inta la xaqiijiyay 7 qofood ayaa geeriyootay halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib markii barqanimadii maanta qarax miinada nuuca dhulka lagu aasaa la eegtay gaari uu saarnaa sargaal ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya kaasi oo marayay isgooska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim oo ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya ayaa caafimaad degdeg ah u rajeeyay Generaal Maxamed Xaashi oo qaraxa ku dhaawacmay isagoo sidoo kale tacsi u diray 2 kamid ah ilaaladiisa oo qaraxaasi ku geeriyootay. Afhayeenka oo qoraalka soo dhigay bartiisa Facebook ayaa waxa uu ku sheegay in Generaal Maxamed Xaashi uu yahay sargaal waaye arag ah lafdhabarna oo ah ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliya. qaraxa lala eegtay sargaalka dhaawacan uu ka soo gaaray afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallim waxa uu ku eedeeyay inay ka dambeeyeen dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. geesta kale ilaa ay hadda laamaha ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya wax warar kama soo bixin oo ku aadan qaraxa lala eegtay sargaalkan. deeq macniciino jakay Sab TV Muqdisho. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber